mas'uuliyiinta sare ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xasuuqii dhawaan ka dhacay deegaano ka tirsan maamulka Galmudug ee lagula kacay dad shacab ah oo ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Odayaasha dhaqanka ee siyaasiyiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayagoo kaga hadlay dhacdadii ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo lagu dilay dad shacab ah oo waxba aan galabsan. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya. aad aan ugu xunnahay waxaan u sheegaynaa dawladda Soomaaliyeed beesha caalamka UN-ka waxaan u sheegaynaa dawladda Soomaaliya federaal la yiri dawladda Soomaaliya anaga Soomaaliya isu haysanaa maanta Soomaaliya inaan ahaynaa noo cadaatay heer koonfurka la sheegay heer koonfur hanaga baxeen Galmudug iyo Puntland markay ay dhahayaan heer koonfur hanaga baxaan markay ay dhahayaan waxaan moodaynay koonfur dhan in lagu wado koonfur ma ahna digil imirflu waay waxa ka baxaan laakiin digil imirflu waay digil imirflu waxaan u sheegaynaa dadka meesha jooga oo Puntland iyo Galmudug jooga gobolada Mudug iyo Bari dadka jooga waxaan ugu digaynaa inay ka soo baxaan annaga waxaan nahay takrooni Soomaaliya ma ihim waxaan nahay annaga Oromo nahay barax muslim la helaagaw number 2 meeli ka bilaawati may ba ku dhigay Baydhabo lanka fuliin may bahay lanka ku jeedi Galmudug dawladda Abdullaahi Yuusuf Soomaaliya meelka garaxan ku dhiin Baydhabo garax ku dhii Baydhabo garax la suubi lanka suubi lan Galmudug ku jeedo hay oo xaqiiq leen haayo way onu markii lankaas garaxan ka suubi ay maatin oo ka dhamaatay yaalan oo ka dhamaaday baaran oo ku gubati lanka isqarxi dadkii dhalay Baydhabo roogan مسؤولين شهدان وزير شهدان حلبان شهدان كان أساتي هاين لانكاس رب سوبن تون أرني ملان ولا لا كلا ذو أو مسلم أو هبر قدر أمسن كاين هيوي كلا أدار مدلنا إلهي قرآن شميك رأيه ولا تزر وزيرة وزراء أخرى دنبل لانكي قالي يا قالي لانكلا شعب من ضباطين الآن هدل الروج ويصير لكم ده هداية تابدي نمانك أو هجامية هاي الشباب oo koonfurta roog kulli Galmudug ku jeedan dadkii labada inta ganacsiga kileeyeen hanti gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Abdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye ayaa sidoo kale ka mid ahaa mas'uuliyiintii maanta ka hadashay dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug galbeed xalay lagu dilay magaalada Gaalkacyo kana sii horeysa maalmo ka hor isla deegaanadaas hoostaga maamul goboleedka Galmudug afar qof ayaguna asal ahaan ka soo jeeda deegaanadan lagu dilay labada dhacdo runtii laba dhacdo oo laga qoomamay ahayd aad looga naxo dad birmageyda ah oo aan waxba galabsan siyaasadda aan shaqo ku lahayn deegaanadii ay u dhasheen iyo guryahoodii ooga cararay nabadgelyo la'aan deegaanada kale oo shacab Soomaaliyeed uu leeyahay dadku dal shisheeye ma tagin deegaanadooda iyo guryahoodii waxa waay nabadgelyo la'aan ay uga tageen deegaano kale oo isla dalka Soomaaliya ay xuquuq u leeyihiin oo shacab Soomaaliyeed oo walaalahooda ay joogaan sidii ayagaba shalay loogu soo magan galay ay dad u badbaadiyeen ayaa ayaguna waxa waay duruufta dantu ay baday inay deegaanadaas inay tagaan si ay ugu badbaadaan in lagu waxyeelay runtii aad iyo aad baan uga xunnahay runtii labada dhacdaba tan ugu dambeysay xalay dhacday saakay dhammaan madaxda ugu sareysa ee maamulka tii hore iyo tanba waa kala hadalnay runtii sidii wax u dhaceen bay noo sheegeen ayagoo muujiyay inay ballan qaadayna in la daba gali doono dadkii ficiladaas ka dambeeyay lana soo qaban doono runtii annagoo marka aan shacab Soomaaliyeed ka kala saareen reer Koonfur Galbeed haddaan nahay mas'uuliyiintooda iyo shacabkooda qof Soomaali ah deegaanku doona ha ahaado ha ka yimaado ciduu doona ahaade reer Koonfur Galbeed haddaanu nahay waxaanu mas'uul ka nahay shacabkaas madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Laftagareen ayaa shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa uu horeen tacsiyo ugu daray eheladii iyo qaraabadii ka geeriyoodeen dadkii lagu dilay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug isagoona shacabka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uga baagay inay si dhakhsi ay ugu soo baxaan deegaanada maamulka Puntland iyo Galmudug xariisto intii dhaawac ahna Allah caafiyo waa arin maamul Koonfur Galbeed ahaan waxaan suubinay oo ku dhawaaqnay guddi degdeg ah oo arintaas ka shaqeynayo oo sida ugu dhaqsaha badan meesha u tagaayo
oo ogaanayo meeshaas wixii ka dhacay oo isugu jira wasiirro iyo xildhibaano yaan sida ugu dhaqsaha badan ugu diri doonaa hadduu ilaahay yidhaaho maamulka galmudug oo arrimahaas iyo shacabkaas meesha ku nool arrintooda wax ka ogaan doono. cabdilcasiis xasan maxamed laftagarin madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu wax laga xumaada ku tilmaamay in falay geysteen al-shabaab loo dhibaatay wadadan waxba galabsan oo ilaa iyo haddana aanay jirin cid mas'uul ah oo ka hadashay arrinkaasi. shacabka koonfur galbeed Soomaaliya ee ku sugan deegaanada Puntland iyo Galmudug ayuu ugu baaqay madaxweynaha inay si dhaqsiya ah isaga soo baxaan. aan ku fiicnayn islaamnimada, Soomaalinimada, bini'aadanimada intaba aanan ku fiicnayn oon raad ku lahayn waaye dhacdo soo socotay oo aan mar ahayn oo laba maalin ka hor ay tii ka dhacday Dhuusamareeb tan kalena tii xalay dhacday bay ahayd runtii wax aad iyo aad looga xumaado waaye dad innocent ama saakiin ah oo shaqaysanayo oo daruufahoodii nolosha la tacaamulayo in ayagoonan waxba galabsanin inta loogu tago deegaankoodii iyo guryahoodii iyo meeshii ay deganaayeen lagu dilo aad iyo aad baan uga xunnahay. hadalhaynta ugu badan ee maanta ka socota magaalada Baydhabo ayaa ahayd dhacdadii ka dhacday magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug iyadoona halkaasi dad shacab oo waxba aan galabsan lagu laayay. Ibraahim Macalimow, Ariel TV, magaalada Baydhabo.